السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحاب قالي وميل كستا جوجتين كسو دوادي channel كيني شكرا بولي لايف ستايل أما حرونتا عافيماتكا سوى تقانتين ما تحاربا إنان كسو دايو توبيك آد ومهيم هو أيامها سؤاشي سولو لالاتي وحاوية ilmaha yaryariiska ah ee gaarin sanadka ah hadduu ku dhaco qabow ama ku dhaco hargab sidee uga baxi kartaa adigoo ilmihii way fiicanta isbitaalka la geeyo oo dhakhaatiirta lagala kaashado laakiin ilmaha intuu sanad gaarin ama 6 bilood gaarin ma fiicna isbitaalka in markasta la geeyo ama daaweyn jirkiisa maxaa la dhahaa inuu qaato because beerkiisa iyo kilidiisa aad ayay u yartahay mana awoodo inay waxaasoo kale shiido marka asxaabta qaaliga si dabiici ah gurigaaga ilmahaaga yaryar ugu daaweysan kartaa haddaad xitaa tahay hooyo guriga joogta ilmahaas ilmo kale la dhashay ilmahaas markasta ilmihii kale ayaa iskuul aadayaan ama dugsi aadayaan xanuun markasta u keenayo haddana sidaa u nahay ilmaha aad ayay qabow u yahay oo la joogo dhinacaasiba Nairobi ama Africa marka geegiriiska hadduu ku dhaco qabow ama hargab kuwii kale i keenaan markasta isbitaal muu ordi karayo ay soo maanta dhan ma rabo inaan siiyo daawo qofka aqliga leh ama waxbartay unbaa og daawo inay u yihiin ama waxa la dhahaa sida looga bixi karo marka waxaa sameynaysaa asxaabta qaaliga ah gabadhan dhakhtarad weeye waxaa soo qaadaysaa toontaas actually aad u weynta xitaa waa sii yareynaysaa markaa sii yaraysid ilmahaaga lugihiisa toos looma gelin karo because maqaarkiisa aad iyo aad ayuu u yahay jileec ma awoodo toonta in la saaro marka ani waxay nii sheegaa sidaas sameeyo toontaas ayday weyntahay waa yareynaysaa marka darteed waa tumaysaa yariis iyadoo wax yar inta ka dhigtid markaa duuntid soksaana u xiranaysaa hal soks soksiga markaa u xirtid cunugaaga yariiska ah toontii ayaa kor saaraysaa calaacashiisa lugtiisii markaa saartid soksi labaad ayaa u xiraysaa marka soksi labaad u xirtid isla markii ilmahaaga yar waxaa ka dareemaysaa iyo guriga qolkaaga carafta ama maxaa la dhahaa urtii mise se usoo carfaysay toontii ayaa dareemaysaa haddii saacad laga soo wado ama 2 saacadoodna afkiisa ayaa ka dareemaysaa noonaha wixii ku jiray xabadkiisa iyo diifkii iyo quficii iyo wixii oo dhan marka isla markii waa dareemaysaa iska daa inta salaadii la gaarin subaxdii inta la gaarin soo marka toonta hadii gabadhu waxay sameynaysaa waa ka saasi u jarjaraysaa ani hal xaba kugu filnaa dhihi lahaa maadaama noonaha uu yar yahay weli 6 bilood gaarin hadduu xitaa 6 bilood gaarin uu sanad gaarin xoogaas bahashaas toosa lugtiisa saarna kula sida hadda u sameynayso u jeedin asxaabta qaaliga anigana waan sameeyay noona yar ay joogo waxa sameynaysin marka iyada waxay sameynaysaa waxay soo qaadaysaa maxaa la dhahaa tissue ku xiraysaa waxay ka dhigaysaa sida wiilka noonaha yaraa inay lugta sida u saarleed muuqaal ahaan ama waxay nii tusaysaa iniga isagu aragtin saas u sameey ay ku dhaysaa lugtiisa gali markaas ku hay ama suksan ku xir ku dhaysaa laakiin natural aan waxaan sameeyay markaa research waan sameeyay saas ma sameeyo toonta iyo niisa soo qaada waan tuma haddaan tumina زايد وير aad u yar ama hadaan tumin soksi ayaan xirayaa marka hore toontii ayaan soksi korkiisa saarayaa soksi labaad ayaan kor xirayaa toonta iyo noonaha calaacashiisa lugtiisa inay isgaarto ma aha soksi inay u dhaxayso markasta soksi ka xirtid toontii ayaa saaraysaa lugtiisa calaacasha soksi kale ka xirnaysaa waa ku daynaysaa has habeenkiisa sax ku jiifo ilmahaas yar waa arki doontaa subaxdii markuu ku soo dhaco ma arki doontiisa qufacaayo xabadka xiran sanka xiran uu ka boodaya marka waa dabiici ma u baahnid maanta inaad dhakhtar ka daba ordid ma rabtid inaad isbitaal ilmaha geysid xanuuno kale ku soo qaado ma rabtid ilmahaaga beerkiisa isagoo yar ama kaliyihiisa inaad dhaqso ku expose gareysa ama asiisid daaweyn aad kula carartid marka waa talo ani waan sameeyaa markastaan sameeyo runta daynay sheego saas un baa sameeyaa noonay ku sameeyaa soo marka xaneena asxaabta la kaasho iyagana ama u gudbi sida iyagana uga faa'iidaan marka waxaan dhihi lahaa asxaabta qaaliga sheekareeya videoga si dad badan oo hooyooyin badan oo garanaynin ay ka faa'iideystaan maanta dhan dhakhtar ku carraa ilmahooda maanta dhan isbitaalka la hoos taagan because maanta dhan waqtigu isbedbedelayaa qabow ayaa lagu jiraa sida ilmahaaga
difaaciisa jirkiisana u adkaado isbitaalna martid maanta inaad tagtid soo markaa sheegarayaan ilaasi dadka uga faa'iidaystaan halkaa sii baxaya